السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن أصحابي مالك الصوت نقدر ورئيس برنامج كا وحيد كوشو قاعدنا إنا وركي جوا وينا سكر لي تاني إنتينو كلام غنين قضى بدأ برنامج كان ذي كوا إنه وحاكم ذا مرن حوق له أو سكر نحق لي مسؤولين تا وقص الرئيس ذلك أمريكا ككديب مركي لشيء إنه كوكلا قيب سمين قرشة إيران أسوق بسي أقل كعد سيه شيء سلوك جارو أرنت تاجن ترى موكل باللبينية إنه ويررو إيران وركي وقدم بيه هرمس واندين هيا يور باهنتا مريكن كأو شيكتي إنay heleen xog ku saabsan Iiraan qorshaha ay u doonayso wada hadallada taasoo keeni karta marka dambe Trump inaanu ku dhawaaqi karin dagaalka inuu ku guuleystay haddaba wararkaas aynu barnaamijka ku faahfaahineynaa waxa soo kale barnaamijkan idinku wayna kadib xayiraadda saaran Hormuz oo si weyn u saameysay dawladaha khaliijka madaxda wadamada khaliijka ayaa kulan aan caadi ahayn maanta waxay ku yeelanayaan magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia intaanu barnaamijka ku jirnana wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa Iiraan ayaa xogo la soo helay waxay u gudbisay dhexdhexaadiyaasha Pakistan qorshe ka kooban 3 qaybood heshiis hadaanu la galayno Mareykan qorshaha aan wadano waa 3 qaybood ay yiraahdeen qaybta koobaad waa saan marxaladda koobaad marxaladda labaad ilaa marxaladda saddexaad haddaba marka hore marxaladahan ay soo gudbisay 3 qaybood ah oo warbaahintu ay aad uga hadlayaan ayaan marka hore ka hadlaynaa kadibna waxaan eegaynaa waxa laga yiri arrinkan iyo sida Mareykanka uu dhabarjab ugu noqon karo marxaladahan hadduu maro haddaba markaan idintuso telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay qorshe ka kooban 3 marxaladood ayaa la keenay waxaana la soo dusiyay xog ku saabsan hindisaha Iiraan ee cusub ee lagu soo dhameynayo dagaalka kaasoo ah 3 marxaladood haddaba marxaladda koobaad waa in dagaalka gabi ahaanba ay ku dhawaaqaan Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iiraan inay joogsaday iyadoo sidoo kale la helayo damaanad qaad ku saabsan inaanay mar dambe dib u bilaabi doonin dagaal midda labaad in xayiraadaha lagu hayo dekadaha Iiraan ee dhinaca badda iyaguna si degdeg ah loo qaado iyadoo sidoo kalena lagu joojinayso Iiraan iyaduna weerarada ka dhacaya Hormuz oo ay markaa furi doonto marxaladda labaad loo gudbi doono markaa kadib waxay noqon doontaa in dhexdhexaadiyaashu iyagu ay markaa maamulaan arinta ku saabsan marinbiyoodka Hormuz iyo in markaa meel la isla ogol yahay maraakiibtu ay mari karaan la hagaajiyo haddaba marxaladda saddexaad ayaa waxay noqonaysaa in markaa kadib laga wada hadlo barnaamijka nuclearka Iiraan iyo arrimaha kale ee taagan oo ay ka mid tahay Iiraan arinta ay maalgeliso kooxaha muqaawamada ama awlaadeeda gobolka arrimaha in laga wada hadlo way marka Iiraan waxay u gudbisay leeyahay 3 marxaladood aan diyaar u nahay inay wada hadalladu maraan Pakistan ay u gudbisay Pakistanna Mareykan ay u gudbisay marka waxa leeyahay 3 talaabo hadii la qaado Trump waa guuleystay midna ma dhihi karo ninkan waxa la jecel yahay waa ku guuleystay dagaalkii ana raayay ana saara laakiin hadda waa loo fakaray marxaladda koobaad horta waxa la yiri iyadoo nuclear laga wada hadlin iyadoo wax kale laga wada hadlin waa in dagaalka inuu joogsaday lagu dhawaaqaa nuclearkii dagaalku ka bilowday wixii wali laga xajoonin waa in markaa arrinkaas uu noqdaa arrin ku saabsan wada xaajoodka bilowgiisa inuu u noqdo damaanadna la helaa waliba dalal damaanad qaada arrinkan inaysan soo noqonayn waa marxaladda koobaad waayo u fiirsada marxaladda koobaad sidoo kale waxaa ku jira in dhammaan xayiraadaha la saaray la qaado dekadaheeda wixii xayiraada saaran oo dhan in meesha marka laga qaado wixii dekada cunaqabatayntan Mareykanka uu leeyahay in markaa meesha laga saaro
waxaa kale ku jirta Iiraan iyaduna markaa inay furayso oo go'aanayso in Hormuz la maro taas waa marxaladda koobaad wada hadalka meeshaas horta la soo dhameynaa jaranjaradaas markii lagu soo heshiyo ayaa waxay yiraahdeen marxaladda labaad waxa waaye in dhexdhexaadiyaashu sida loo marayo Hormuz iyo haddii dhaqaale la siinayo Iiraan iyo haddii kale iyo ayaga ka wada xaajoonaya iyo Iiraan iyo ka wada hadlaya arrinka marka waa marxaladda thaniya marxaladda saddexaad nuclear-ka la geeyay odaga marka waxa leeyahay meel nuclear-kii iyo wixii dagaalka loo bilaabayba Iiraan waxay leedahay sheekadaas ma dhawa waxaana ka horeeya in jaranjarooyinka la soo maro haddii jaranjarooyinka la soo maro nuclear-na ma loo tagayo wax kalena looma tagayo marka marxaladda saddexaad markii labada laga soo heshiyo la soo dhameeyo ayaa nuclear loo tagaa taasna waxa leeyahay odaga waxa ku tahay dhabar jab weyn waxaa meesha ka cad Iiraan inay dhulka ku jiidayso ninkan ay leedahay nuclear kan dagaalku ka bilowday maba laga hadlaayo hadeer ma jooga ma laga hadlaayo waa marka ugu dambayso waa kaas waa mar wixii oo dhan laga saxeexday odaga dagaal dambe inuusan qaadeen inuu markaas kadib nuclear-ka la furaa asagana miiska maxaa u saaray nuclear-ka uranium-ka keen waxaasha u saaray marka waxaa la yidhi odaga muqtaraxiyaa loo gudbiyey hindisihii Iiraan ay keentay waa kanaa la yidhi adeero muku anface mise adigay kuu taalaa haddaba markaanadi tusoo wararkii ugu dambeeyey jawaabta Trump jaridda la yidhaahdo New York Times ayaa laga soo xigtay saaka iyadoo leh Trump raalli kama ahan hindisaha Iiraan ay soo gudbisay la taliyaashiisa markii uu u sheegay wuxuu yidhi anigu raalli kama ihi hindisaha Iiraan ay soo gudbisay siday wax u dhigtay waa banala ka adkaadu yidhi Iiraanna maxay taagan tahay wada hadalku hadduusan marxaladaha marin wax la wada hadlayo male adeerow waxaa doonta la imaa waa la yidhi marka sheekadaasu marka iyaduna halkaasay maraysaa arrintan marka hindisaha Iiraan wuxuu kala qaybiyey aqalka cad madaxdii ugu sarreysay macnaha maamulka dalka Mareykanka madaxda ugu sarreysay kala qaybiyey inqisaam uu ku sameeyay kala qaybin ninka wasiirka gaashaandhigga iyo qolooyin mayal adag waxay aadeen dagaalan galina madaxweyne ku-xigeenka Faris oo maalmahanba shaki ka qabay wasaaradda gaashaandhigga oo lahaa taqriirka ama warbixinada ayna siinaysay qaladaad badan ku jiray Iiraan waa baabeena Iiraan saana yeelnay noo soo qoraysa wax ka jirana ma jiraan asaguna waa boodsan yahay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay arrinkaas suuragal ma dagaal ma ku degdegi karno hal kale waa in la raadiyaa bal aan wax kala fiirino nimankan handadaad waa ku daynay maraakiib meesha waa dhoobnay wax kasta niman soo jeesanaa ma ninkan marka wasiirka gaashaandhiggan wuxuu leeyahay nimanka waa weerarayna haddaba markaan tusoo warbixin kale Al-Jazeera waxay leedahay kala qaybsanaan ayaa laga soo sheegayaa gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka taasoo ku saabsan in Iiraan la garaacayo iyo in kale haddaba Washington wararka ka imanaya waxay sheegayaan in maamulka uu kala qaybsan yahay Donald Trump sheekada ku saabsan waxa laga yeelayo qorshaha cusub ee ay Iiraan soo bandhigtay oo ay keentay ayaa laga hadlayaa marka Iiraan buuq fara badan ay ku furtay maamulka Mareykanka ninkii caraaqji ahaa ayaa waxa leeyahay hindisahan saddexda qayb ka kooban Pakistan u dhiibay Pakistanna waxay ku yiraahdeen Iiraaniyiinta waa daasheen adikana annagu wada hadal hadaa diyaar u nahay Mareykan la fariisanayno saddexdan marxaladooda la maraa marxaladda koowaad marxaladda labaad marxaladda saddexaad hadduu Mareykan diyaar yahay noo keen marka hadda meeshii buuq fara badan ka dhacay odagii marka waxa leeyahay tan haday Iiraan u meel marto macnaheedu odaga guul dambe ama wax guul uu ka sheegan karo dagaalka ma jiro waa ku jabaalee odagu marka asaguna inuu guulaysto jecel yahay wixii aan rabaa la yeelay inuu yiraahdo marka sheekadu halka waaliye ka tahay dhanka kale majalada la yiraahdo Axios warbixin ay qortay ayaa waxa la leeyahay Trump wuxuu leeyahay wuxuu ku labaynayaa inuu qaato go'aanka garaacista Iiraan iyo in kale موقع أما ويب سايت كليرادو أكسيوس أيا شيء يا مدحونا أمريكا
inuu hadda daraasad ku hayo kala doorasho inuu dagaalka sugo waqti siiyo wada hadalka iyo inuu weerar qaado cusub military ku qaado Iran marka waxa leeyahay natiijada cunaqabataynta la saaray Iran dhaqaale ahaan say u burburi karto sugaya dagaalka xoogaa marka inuu cunaqabatayntan waxa ay gaarsiin karto bal Iran aan sugno u leeyahay marka haddii marka uu ka labaynaya ma sugtaa ma weerartaa marka taas marka hawshaas iyaduna halkaas maraysa le dhanka kale waxa la sheegayaa markabkii ugu horeeyay ee wada gas oo ay dawladaha khaliijku leeyihiin khaliijka ka soo baxay cidda iskale kole lama yaqaan waxa loo badinayaa qadar inay iyadu gaaska ugu badan tahay ayaa markii ugu horeysay Hormuz la xiray ka gudbay alle maanta soo aaday Iran waxay tiri gudub markab gaas wada marka markabkaas isaguna waa la fasaxay Hormuz oo maraya leeyahay maanta wararkaas soo kordhay dhanka kale magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia maanta waxa kulan ku leh madaxda wadamada la isku yiraahdo ururka iskaashiga wadamada khaliijka waxay ka arisanayaan go'doominta Hormuz dhibaatada laftirkooda saameysay dhaqaalahoodii waxoodii maxaan ka yeelnaa dagaalka hadaan galnana waxaan ka faa'iideynaa lama arko wada xaajoodyada waa inaan si buuxda u taageernaa sidii meeshan nabad uga dhalan lahayd inaan culays ka saarnaa marka kollay maanta ayay iyaguna waxay kulan ku leeyihiin magaalada Jidda aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay shir madaxeedka wadamada khaliijka oo markaa wada tashi ah oo degdeg ah ayaa magaalada Jidda la isugu tagayaa kaasoo looga arinsan doono xiisadaha ka jira Iran iyo marin biyoodka caalamiga ee Hormuz iyo dhibaatada meelaha ka jirta marka iyaguna marka waxay leeyihiin maxaan qaban karnaa sidee isu badbaadin karnaa xaalku waa nagu xun haddii dhowr bilood oo kale Hormuz sii xirnaato khatar fara badan ka dhacaysa khaliijka gaajo fara badan dhacaysa meelay wax u marayaan male dhibaato badan marka halka ayaduna ka taagan haddaba qadar xaysiisa kadib wixii warara soo kordhay qaybta wararka degdega ayaynu eegi doonaa waa isku soo haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa alaaba wararka ugu waaweyn ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirnay waxaynu markan eegaynaa dhanka Lubnaan iyo Israa'iil weeraro cusub ayay saacadihii la soo dhaafay Israa'iil ku qaaday deegaano ka tirsan koonfurta Lubnaan isla sidoo kale deegaano ka tirsan halkaas ayay dadka ugu baaqday inaysan u soo dhawaan oo ay ka tagaan dhanka kale Xisbullah ayaa iyaguna sheeganaya inay weeraro ku qaadeen goobo ay joogeen ciidanka Israa'iil haddaba xiisada ka jirta koonfurta Lubnaan ayaa sii xoogaysanaysa inkastoo xabad joojin uu ku dhawaaqay Trump oo 3 toddobaad Lubnaan ay shaqaynayso oo magaalada Beirut aan wax dagaal ka dhacay marka meeshan marka waxa leeyahay xabad joojinta Beirut bas ka shaqaynaysa macnaha magaalada caasimadda ha weerarinaysa laakiin ta kale Lubnaan dhulkan kale oo koonfurta Lubnaan oo Xisbullah joogaan waa duqayn kartaa waxa rabtaa ka sameyn kartaa in la yiriyo kale ayay xabad joojinta u shaqaynaysaa xabad joojinta Israa'iil waxay ixtiraamaysaa magaalada Lubnaan caasimadda Beirut waddanka Lubnaan caasimadiisa Beirut laakiin wadda meesha kale iyadoo Lubnaan ma ahmiya laakiin Xisbullah laftirkeeda kuma jirtaba nimankan iyaga halka way isku hayaan lagaha la iska garaacaya marka meeshaas wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in weeraro culus la isdhaafsanayo Israa'iil iyo Xisbullah waa la iska raacayaan waayahay qodobadaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkii ugu horeeyay maanta Talaadaan idin soo gudbinayno akhyaaray haddaba like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka inta aan markale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo barnaamijka waxaan idinkugu hayaa Shiinaha iyo Iran oo qorshe cusub u degay Mareykanka Putin oo ka hadlay xaaladda Iran iyo Mareykan kadib markii uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi hogaamiyaha Xisbullah oo isaguna hadlay 5 shuruudoodna ku xiray hadiiba ay dhacayso in xabad joojin rasmi ah lala galo Israa'iil
haddaba maxaa ka mid ah shuruudahaas iyana barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta oo isniina kusoo gudbinaynaa inta aan ku jirnana wixii soo kordha warara waan idinla socodsiin haddaba barnaamijkan waxaynu kusoo qaadanaynaa maxaa soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn qodobo xiise leh ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa soo dhaweyn heer sare ah u sameeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi iyagoo kulan muhiim ah ku qaatay gudaha waddanka Ruushka haddaba markii kulanka uu dhamaaday ayaa madaxweynaha Ruushku uu hadlay haddaba wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray haddaan idin la wadaago waxaa la sheegayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in shacabka Iran ay yihiin kuwa u dagaalamaya si geesinimo leh wuxuuna sheegay inay yihiin halyeeyo u halgamaya qarankooda iyo qarannimadooda inay difaacdaan dhanka kale wuxuu sheegay in waddankiisu ay ka go'an tahay inay sii wadaan xiriirkii ay kala saxiixdeen iyo heshiisyadii dhinaca istaraatiijiga ah ee u dhaxeeyay Iran iyo ayaga hadalkan ayuu sheegay Putin kadib markii uu si weyn u soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo booqasho ku tagay magaalada la yiraahdo St. Petersburg ee ku taala waddankaasi wuxuuna sheegay inuu wasiirka gaarsiiyay fariin uu ka waday aayatullaahiga cusub ee Iran Mujtaba Khamenei way isagoo faraxsan oo qoslaya ayuu qaabilay wasiirka arrimaha dibadda warnimayow dhiman caadiya matiid halaag aatiinu leeyahay Iran haddaad tihiin macallinkii weynaa iswaalayay ninkii Trump ahaa dabka ka dhumiseen uu yidhi ma fahamta waa wareeriseen odag marka waxaa tiinu geesiyaal u dagaalamaya badbaadinta qarankooda halyeeyaa tiinu intaasoo isugu daray halyeey iyo geesi iyo dad naftooda u huraya qarannimadooda iyo dalkooda intaasoo isugu daray wuxuu sidoo kale sheegay in ay ka go'an tahay Ruushka heshiiska ay galeen iyaga iyo Iran ee ah dhinaca xiriirka wax wada qabsiga istaraatiijiga leeyahay wuxuu sidoo kale sheegay Mujtaba inuu ka helay aayatullaahiga fariin laakiin Muuse sheegay fariintu waxay tahay haddaba marka dad badan waxay isweydiinayaan muxuu yahay xiriirka istaraatiijiga ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Iran علاقة استراتيجية لهذا شراكة استراتيجية marka istaraatiijiyadan la wadaagayo xiriirka ah maxay tahay hadaba warbixin laga qoray hadaanad tuso arintaasi waxa leeyahay mucaahadada ama heshiiska dhexmaray Iran iyo Ruushka waxa uu ahaa heshiis wax wada qabsi dhinaca istaraatiijiyada ah oo dhameystiran waxaana saxiixay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian heshiiskan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 17 Janaayo sanadkii 2025 wuxuuna ku qotomaa heshiiskan heshiis dhinaca labada wadan ee xiriirkooda iyo iskaashigooda waxaana uu yahay in la iska kaashado dhinaca dhaqaalaha iyo in la qafiifiyo dhinacyada uqubaadka ama cunaqabataynada Mareykanka sidii loo qafiifin lahaa inay iska kaashadaan iyo dhanka ugu muhiimsan oo ah heshiis wax wada qabsi military iyo mid siyaasadeed marka heshiisku marka waa heshiis dhaqaale mid siyaasadeed in macallinka weyn cunaqabataynada uu labada wadan basaarayo say u jabin lahaayeen isaga kaashan lahaayeen iyo sharaaka askariya oo maartay dhinaca militariga marka dhowr heshiisya jira heshiis hadii mid hadda waxa jira u dhaxaya Jeegaxirka iyo Putin Jeegaxirka waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi magacan u bixiyo waa cunuga jeegada xiran Kim Jong Un aliyada isaga iyo Ruushka waxa ka dhaxaya heshiis military oo ah midkood hadii la weeraro kan kale inuu dagaalka galayo oo ciidan dirayo heshiiskaas marka muxuu keenay maadaama Ukraine iyo dagaal uu u dhaxeeyo Ruushka
إن جاغحيركا أما كوريا وقوي أي عيدا أدرين روسك oo ay ka soo dagaalameen halkaas qaarkood ay ku soo dhinteen marka alaaqadaas ama heshiiskaasu waa heshiiska ugu xoogan dhinaca military waxa ku xiga marka midka Iran iyo Ruushka kan Iran iyo Ruushku macnihiisu marka ma aha Ruushku inuu weerarayo hadii Iran la soo weeraro ama Iran hadii la soo weeraro Ruushka inay difaacayso heshiis noocaas ma laakiin waa heshiis wax wada qabsi military diyaarada daroonisa oo ay qatar ku tahay Iran ayuu Ruushku soo qaadanaya gantaalaha iyo alaabtan wiifaysa ee Ruushku qatarta ku yahay isaguna Iran u geynaya waa heshiis way wax wada qabsi istaraatiijiyadeed dhinaca military farsamooyinka la isweydaarsanaya khubarada la isweydaarsanaya nuclearka iyo uraniumka dad khabiir ku ah Ruushku soo diraya waxyaabahaas waa marka kaas waa marka istiraatiijiga xiriirka ka dhaxaya marka waxay u muuqataa leeyahay Ruushku inuu la dhacsan yahay waxa lagu dhigay macallinka weyn nag awda laga dhigay waa soo kicilay marka Ruushku marka sida uu soo dhaweynta u helayo wasiirka arrimaha dibadda sida maartay loo soo dhaweynayo wax caadi ma aha leeyahay waayahay kaarta kale ama qorshe kale oo cajiib ah ayay u dhigeen Shiinaha iyo Iran Mareykanka u dhigeen ninkii Trump iyo kooxdiisu waxay yiraahdeen waa go'doominay Iran go'doominta Iran kaliya ma ahane waxa sidoo kale go'doomayo dhaqaalahooda hoos u dhacaya Shiinaha oo nala tartaba shidaalka ugu badan Shiinaha wuxuu ka qaataa Iran haye marka labadaba waa isla go'doominayna sheeko fiican ama noo soo baxday marka meesha wax soo mari karo ma laha leen okay masaasa aha ilaa Chinesku waa balaayo socoto waay asaga Iran mar hore waxay ka fakareen oo ay samaysteen waxa la yiraahdo sikakul hadidiya meelaha tareenadu maraan tareeno meelay maraan oo shidaal iyo waxa kan ah oo lagu qaadi karo iyo alaabtiyaaba bilaabataan ugu leey adiga badda iska joog halkaanaba laga daldalooya wix maxaa marka xirtay waxa xirtaa iska alaabtan way u kaydsaneed lugaa inay waxan dhacayaan way ogaayeen haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray haddaba الجزيرة waxay soo xiganaysaa journalka Mareykanka ee yiraahdo Wall Street Journal journalkaas waxa uu qoray Iran hadda waxay u jihaysatay inay shidaalkeeda u dhoofiso Shiinaha iyadoo sii maraysa dhanka tareenada wadooyinka loogu talagalay marka wadadaasaba soo baxday alaabtii meeshaasaba lagu qulqulinayaaba meeshaas ku socdaan shidaalkii meeshaasaba laga wadaa lagu leeyahay marka macallinka weyn adiga badaan iska fadhi meeshaas waardiyan ka haya ku hay marka sheekadaas marka iyaduna wararka cusub ee cajiibka ee soo kordhay ayay ka mid tahay qodobka kale ee soo kordhay waxa isaguna ka mid ah wadaadka hogaamiya Xisbullah sheekha waxa leedahay Naciim Qaasim leedahay Naciim Qaasim wuxuu la hadlay dawladda Lebanon wuxuu ku yiri waa ka soo horjeednaa wada hadal kasta oo toosa Israa'iil la gasheen wax sax ma aanu Israa'iil wax la heshiin karo male mana astaahilaan in la heshiiyo dhahay ninka leeyahay Naciim Qaasim dhahay oo hogaamiyaha Xisbullah marka wuxuu yiri waxa kaliya ee nimanka lagu hadli karo oo xabad joojin iyo lagu gali karo waa inay shanta shuruudood markay ka soo baxaan kadib la xajoon kara inta ka horeysa waa lees duleynaya waa dulinima muujinaysan annaguna kuma jirno dhahay haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay ninka la yiraahdo Qaasim oo ah hogaamiyaha Xisbullah wuxuu diiday wada hadalka Lebanon ee tooska ah ee Israa'iil la gashay wuxuuna xadiday 5 qodob oo muhiim ah oo sheegay in haddii Israa'iil ay ka soo baxdo ay tahay in lala hadlo qodobada wuxuu sheegay kow inay joojiso weerarada gardarrada ah ee dhinaca dhulka iyo badda iyo cirka oo ay Lebanon ku hayso
midda labaad wuxuu yidhi waa inay ka baxdaa israa'iil dhammaan meelihii ay soo gashay oo lubnaan ka tirsan oo dhan midda saddexaad wuxuu yidhi inay sii daayaan maxaabiista ay hayaan oo dadka reer lubnaan ah oo ay israa'iil hayso inay sii daayaan iyo midda afaraad oo uu sheegay inay tahay in si rasmiya ay dadkii ehelka u ahaa guryahoodii iyo waxoodii ay loo ogolaado inay ku laabtaan meelahoodii ay deganaayeen iyo midda shanaad oo ah icaadatul icmaara la yidhahdaa inay wixii ay burburisay oo dhan dhisto odaga marka warkiisu waa cad yahay 5 qodob hadday keento waa lala xajoon karaa laakiin 5 qodob hadday sasabayn wax wada hadalkooda aan aaminsanahay malo maxaa dhacay marka maanta waa si fiican loo sokolay nimankii Israa'iiliyiinta dhagaha laga garaacay diyaarad waxay ka qeeliyeen drone oo nooc cusub ah oo fiber optic ku shaqeynaysa lagu leeyahay wax weligay arkay ma waxa lagu leeyahay diyaarad drone oo internet ku toos ugu xiran oo fiber optiga oo ka qeylisiisa jirta ma oo xataa raadaradoodii wuxuu ay qaban waayeen marka sheekadu marka halka aad ay u kulushahay wadaadka xisbullah wuxuu leeyahay waxa ay wadaan dawladda Lubnaan hadaatiin annaga nagu ma matashaan jabka ku rito wixina hadaba waxaynu u gudbi doonaa wixii warara soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay barnaamijkeennii labaad qadar xaysiisa kulati wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeennii labaad maanta isniin aan idin soo gudbinayno haddaba qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaa alaaba wararka soo kordha intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba war cusub oo goordhow soo baxay waxaa la sheegay inay qortay jirada leedahay Wall Street Journal waxay leedahay Yurub waxay qasaartay 32 bilyan oo dollar markii dagaalkan iyo Hormuz markii la xaray waxayna yiraahdeen gaas la'aan shidaal la'aan waa u dheeri intaasna way khasaareen Yurub qasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray markii Hormuz la xaray meelay ka bilaabaan malade maxay sameynayaan Trumpna way isku kacsan yihiin oo Trump asxaan uga hay male Iiraanna waxay leedahay ninka meesha ka kiciya annaga waa furaynaa asaguna iyagoo ku xumaynaya meesha u fadhiya dagaalkii la gala madiidino asaguna kor u ka haystaa wadadii waa xarad marka waxay leeyihiin hadda qasaaruhu waa sii badana maalmaha soo socda Yurub dhaqaale xumo xuna soo food saari doonta gaas ma jiro shidaal ma jiro dhibaato haysata 32 bilyan oo dollar wax u dhigmo dhaqaalaha ayaa tan iyo markii la xiray maalmihii koobnaa uu xiran yahay Hormuz ayay maarta soo wajaalay barnaamijkaygii labaad waa naga inta asxaabay wixii warar soo kordha hadii alla inoo barnaamijka saddexaad ayaan idinku soo gudbin doonaa like garay oo share garay barnaamijka hadaad cusubtaan subscribe-ka ka iloomi YouTube-ka Facebook-ka follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay wadgali